haweenka taageerayaasha wadani ayaa casho sharaf ay ku xoojinayaan taageeranimada ururka wadani ku qabtay hoteelka Harawe ee magaalada Boorama. ururka wadani ayaa ilaa imika ah ururka ugu firfircoon gobolka Awdal isla markaana muujinaya hididiilo iyo hiisi hadafeed. casho sharaftan ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha garabka haweenka ee ururka wadani ee gobolada Awdal iyo Salal Sahraaw Cilmi. waxaanay ku dheeraatay warbixin kooban ka bixisay ururka wadani iyo hiigsigiisa isla markaana waxa ay sheegtay ururka wadani in uu muhiimad gaar ah siinayo dadka laga tirada badan yahay sida haweenka iyo dadka la haybsooco. إن شاء الله بإذن الله الكريم حسبنا أورك نوعه وهذا الفريق سمير لنا نغفره وأورك كمده وهو أورك القضية إنه كلامه هو نفسه كقرر دوران هذه لها إراده لكن هو حل سوري جديه وقوله هنا برلمان سوري جديه وكم يجي برلمان إن يراده شديد لبنشين يوحي كويني كقيب قال دوران doorashada golaha deegaanka rag iyo dumarba taasina waa guul u soo jeetay haweenka iyo dhalinyarada. waxaan filayaa inaynu ku hambalyeynayno aad baan ugu mahadcelinaynaa golaha baarlamaanka fikrada fureen arrimihii xallinaa marka hore ee dhalinyarada mid door ku lahayd talada iyo haweenka. markaas aad darteed anigoo ku hadlayay magaciina iyo magaca maxaadaan haweenka Awdal iyo Salal waxaan soo dhaweynayaa ururkan wadani waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada. waxa kale oo halkaasi ka hadlay Foosiye Muuse Cabdilaahi oo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee haweenka ee gobolada Awdal iyo Salal. waxaana sheegtay inay dhalinyar ahaan ay taageeri doonaan ururka isla markaana ay hiiliyahooba la garab joogi doonaan. أنا أفكر دنيا رضو بحضر يا دمان وحن أدي أدو فرحسناي وركم ودني أنا كمل مقرنا أنا نتاجر دونا سداعة أنا محي هدي مدام ويهي أوركني أوردنين يا دمركا يا دنيا رضو خاصة أنا بريورتي محسيننا ورك ودني أنا أدي أدو تاجرنا ونا نقدر حسب قصاب بحضنا إن شاء الله وحرجينا إنه لهي سلايس خير قطع ونقدر ما يوفر حدينا إن شاء الله. ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay Khadra Usmaan Ducaale oo ah musharaxada golaha deegaanka ee ururka wadani ahna haweeneydii ugu horeysay ee isku soo sharaxda deegaanka ee magaalada Boorama. munaasabadan fursada caawan ka faa'iideysanayo anigu markii hore waxaan ka tirsanaa ururkii xisbiga ucid ayaan ka ahaa sharaxad golaha deegaanka. haddana anigoo ah ururka wadani aan aad u taageersanahay una soo dhaweynayo uguna faraxsanahay afkaarta uu keenay. waxaan ku taaganahay haddii ilaahay yidhaahdo in aan isku soo taago golaha deegaanka. marka garab waxaan ka sugayaa in ay garab iyo gaashaan bay siiyaan haweenka maxaan ku idhahdaa gobolka Awdal iyo Salal gaar ahaan xisbigan cusub ee wadani ee aynu taageersan. Khadir Maxamed Xasan Xidigta News magaalada Boorama.